hadda ka hor baan halkan ka baxnay doon baan fuulay min taskhiirillahi iyadana ka mid ah oo 12 dabaq ah waxay ka baxdaa Sweden waad wada fuusheen meelahan markaad joogtaan kuwa xaggaas markaan u sheegay la yaabaan 12 dabaq doon ah markaan meelahaas kala joog idinka halka waa wada fuusheen oo gudaha ku wadata waxa soo baabuur iyo tareenkaaba fuulaya waa min taskhiirillahi ta'ala doontii baan fuulay koox baan ahay jamaaco oo kolkaasaanu niri bal meeshan aan ku jawlayno ileen jawlada waa lidacwa insha Allah ta'ala ileen waxa soo dhowr kun oo gaala jooga hadda iska tago ay qarqoonto fi naar jahannam soo maaha rasuul kale looma soo dirin balaan fikirna maxay yeela balaan isqa qaybino la'alla wa'asa waa isqa qaybinay aniga mid kale oo iga cimaamad weyn baa israacnay dabaqa hoosaan tagnay soo noqodkii markaan soo noqonaynay laba Sweden oo dhalinyaro waa kuwan waana salaamay iyagaabana soo doontayba waa muslimiyatiin ha muslimiin baan nahay waxaan doonaynaa inaad islaamka noo sharaxdaan haya tafaddalu waa basaan u soconaybe bahalkii baan soo fuulay bahalka wiishka la fuulaya 12 dabaq way kor baan soo fuulay kor maxaa ku sii diyaarsan jamaacatul istiqbaal jamaaca la ilaaho oo loogu sii talagalay istiqbaalko iyagu buskud iyo keeg iyo alaabtii sii dhigay qaar nala joogay haddaba ay muuqdaan halkan maalintaas habeenkaas qoladii waa yimaadeen meeshay fariisteen buskudkii iyo wixii baa horta marka horeba iyo alaabtii baa la siiyey waxay la noqotay wax qariib ah li'annahu waxay isweydiiyeen waxaan firiimiya bila fulus miyaha waa bila fulus baa leeyahay waxba lidinka marrab waxa laga yaabaa waxay dhaheen awal marra oo taariikhdooda ah kuwii kale ii sheegayo waxa laga yaabaa markii ugu horeysay oo noloshooda ay wax bilaash ay ku cunaan inay tahay ama ay ku cabaan iska qaata almuhim markii soo dhaweyntoodii ay dhamaatay ayaa waxa la yiri qolooyinkii maxaa yaa la hadlay waxa la adigu la hadlan annagana waa ka tarjamayna waxa la yiri haye waxaan yiri maxaad ku falaysaan islaamka bal walaalayaal ka fiirsada waxay dhaheen waxaan ku noolahay horta waxba ma rumaysnin bilaa diin baan nahay kiristaanka mid baa hadlayay labadooda wuxuu yiri kiristaanka markii aanu yarayn waan dhiganay madaarista iskoolaadka laakiin nama qancinin intii ka dambeysay bilaa diin baan nahay saas awgeed waxaan dareemaynaa bal fiiro waxaad hadda aad u garanay weeyad waxaan dareemaynaa buu yiri faraaq waa waxba naga maqan bal waxaan rabnaa inaad noo sharaxdaan inaan markaas qaadano waa ka fikirayna waxaan leeyahay saddex su'aal anta adigu makhluuq baa tahay faman khaliquka yaa ku abuuray makhluuq baa tahayo waa lagu abuuray lima khuliqta maxaa lagu abuuray ta su'aasha saddexaad makhluuq baa tahay bidaayad leedahay oo meel baad ka bilaabatay فما هي نهايتك بداية ووضع نقان ماشان كوضع بالله ونوان نقانا نهاية هذا محيط حقيت كل مان عبار بو فكري كيه لبدو ده هذا يي وحوير السدح ذا سؤال جوابته ذوابتان لآو دي خبسان دي ما أنت إلهي بكول كوكو بشاري مركاسان هلكا وقبل الله خالقك الله عز وجل إلهي باكو أبوري سماوات كي يعرفوا أبوري أمورها سنقصوا شك halka markii aan u waday in uga sheekeeyay koonkan inuuna iska ahaan karin diqada iyo ajaa'ibtaas u samaysan bila khaliq wuxuu yiri taas waan ku yar qancaya laakiin waan ka yar caraysnahay buu xoogay cara iga yar jirto khaliqa waa yar rumaysanahay haddana hadalkaagii wax badan baan ka fahmay waanu yar caraysnahay maxaad ugu caraysanta wuxuu yiri waxaan ku dhiganay kiristaanka markaan iskoolaadka dhiganaynay in qawm nuux markii la halaagay oo ilaahay carooday oo halaagay dadkii nuux khilaafay intii nuux iyo intii la socotay kaliya ay badbaaday oo uu arkay inta yar ee soo hadhay ilaahay markuu arkay inta yar ee soo hadhay waa soo hadlay inuu ilaahay uu ka nadaamoodo ka shalaytiyo yiri waa caraa qaaday oo dadkii waan iska laay soo maaragtay dib dambe ugu noqon maayo markaas uu ballan qaaday dib dambe inuunan dadka u halaagin taas uu leeyahay marka maanta kuwa axmaqiin oo waxba kala garanay ayaa waxa oo cilmi uu baray isagu saas uu leeyahay ayaa waxay sameeyeen buu ku leeyahay bahashan qunbula durriya bambaatoomika sameynaya oo xabad kaliya ku filan inay koonkan oo dhan ay halaagto marka muxuu kuwan u deynay hadduu ballan qaaday inuusan dadka halaag waxaan idhi allahu rabbul alaamiin jalla jalaaluhu man nadaamud hada qorraxda imise sanay samaysnay lama oga buu yidhi malaayiin siniin weligaa ma maqashay baan maalin meel bay ka xumaato waa la hagaajinaya siyaanay u baahatay waxaan siyaano leeyahay doontan in yar bay ku bilaabatay
loox yar bay ahayd waa la weynay ilaa intana ila ekaatay weli waa la sii wadaa iyadoo haddana samaysan maalin kasta meel bay ka distaa waa la hagaajiyaa weli ma maqashay fi taariikh xataa qorraxda meel u baahatay in laga soo sameeyo maya maana maqal buu yidhi cirka weligii meel buu ka disay maya dhulkana sidoo kale waxaan idhi haddaba allaahu rabbulcaalamiina wuxuu sameeyey siduu u sameeyo waayo ma beddel maayo qorraxdan maalintuu samaynayay wakhti kasta inay u habboon tahay ilaa yowmi alqiyaama ayuu ugu talagalay waana sidii weligeed ma beddelmi mayso kadalika sidoo kale aqwaashiisii afcaashiisana waa la mid waxaa nadaamoodo oo shallaytadu ay ka suurtowdaa midaan wax kala garanayninoo maanta wax sax la noqdaan barrina ay khalad la noqdaan laakin allah tacaala wax kasta waa og yahay sidaas awgeed tan laguu sheegay khuraafaad weeye been weeye waxba kama jiraan sidaa unbuuna yeeli eber buu ka dhigaya wax alla waxay khilaafa amarkiisa subxaanahu wa tacaala ima caajilan aw aajilan waan iska wadnay oo waxaan kala hadlay haddana qaybtii labaad maxaa lagu abuuray lima khuliqt ciyaar laguma abuurin cabad laguma abuurin doqonnimo weeye inaad tiraa cuntaan cunaya waan seexanaya meelahaas awoodda ilaahay markaan uga hadlayey qudrada ilaahay aan ka hadlayey waxyaalaha aan weydiiyey ee idinkana laga yaabo marar badan inaa iga maqasheen waxaa ka mid a waxaan idhi beriiska ma cuntaa haa buu yidhi waan cunaa beriiska waxaan ku weydiinayaa bal hadda ka fiirsada waxaan idhi dawladda adduunka ugu weyntee weeye maraykan buu yidhi tan maraykan iyo tiinna iyo kulli haddii laysku wada daro waxay farsame iyo tiknoloji iyo horumar gaadheenna laysku soo wada daro hal xabad oo beriisa ma samayn karaan kama fikirin markiiba wuxuu yidhi maya ma samayn karaan yaa sameeyey garbuhu saa yidhi de garbaha saa hadhihin baan allaahu rabbulcaalamiinaa sameeyey kulligood tiknoloji iyo taqadum iyo horumar kastay isugu tagaan hal xabadoo beriisa ma samayn karaan xabad gellaya ma samayn karaan xabad masakaa ma samayn karaan jurco yar kabasho yaroo caanaa ma samayn karaan yaa sameeyey ilaah baa sameeyey subxaanahu wa tacaala hadday arrintu ay tahay zaarica ama kan wax abuuraya ay arrintu isaga ay ku siman tahay waxay qiyaastu ahaan lahayd hal xabadoo beriisa markuu dhulka uu ku rido geed ka soo baxo inuu xabad ka qaato xabad gellaya dhulka ku riday hal xaba inay u soo baxdo haddiiba dee la siinayo wey xabad baa ka luntay soo maa xabad inuu qaato walaakiin halkan geed baa ka soo baxay weyn oo caleemale 7 sabuul buu soo riday sabuul kaste 100 xaba ayaa saaran maalan yaa sameeyey allahu rabbulcaalamiin iga warran baan idhi maanta haddii allah jalla jalaaluhu uu yidhaa dhul yahow way kibreen kuwane wax damba ha soo saarin yaa ardu laa tunbitii bacda alyowmi shay-an maanta kadib waxbaba ha soo saarin maxay cunayaan lacagta ma cuni karaan haysta intaasoo dhan wuxuu ku jawaabay sidaasoo kale isagana waan la hadlayaa moogtahay iyaaki acnii wasmaci ya jaarata waa idinkana waan idiin jeeda lianna aayadahaas walaalayaal inaan ka fikirno weeye khaasatan carruurteenna inaan yaqiin ku tarbiyayno dukaan uun wax laga soo gadoo la cuno waa la yaqaanaaye marnaba u sheegtay ilmahaaga yar waxaan ilaahay baa sameeyey bani aadan ma samayn beriiskan aad cunayso ilaahay baa abuuray khaasatan dumarka haweenka waa inay carruurta ay ogeysiiyaan waxyaalahan baakadaha lagu soo goray caanahan baakadda swidhan ma samayso waa inay u sheegaan denmark ma samayso allahu rabbulcaalamiinaa sameeyey laba maaddo oo labaduba ay najis tahay oo dhiig iyo uus waxa caloosha ku ururay labadaasaa ilaahay caanaha ka soo dhex saaraa siduu qur-aanka noogu sheegay jalla jalaaluhu bal waa kaa warshada adduunkao dhan isu geeyo oo labadaa isu geeyo caana ka soo dhex saara laa yumkinuhum abadan weligood ma samayn karaan abad alaabidiin marka in loo sheegoo la yidhaha baakadun bay qoladan ku soo shubeen fintijeer bay geliyeene ma sameeyaan oo yaqiin lagu tarbiyeeyo waa daruuri nacam in loo sheegoo la yidhaha dawlad baabuur way samaysaa diyaarad way samayn kartaa waxaa waa la samayn karaa farsamadaasoo dhan waana min taskhiir illahi ilahi baa u furay laakiin weligood neef adhiya ma samayn karaan neef geela ma samayn karaan xataa digaagad bayda ukun ma samayn karaan waa inaad carruurta u sheegtaa yaqiintaas oo laga dhaadhacsiiyo annaha kullaha min allah imaam ibn alqayim aljawsiya raximah اllah baa hada alqayim ah hadalkaas yidhi wuxuu yidhi addoonkuu shaakir noqon maayo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u mahadnaqi maayo ilaa 3 khisaal laga helo awalan wuxuu yidhi khaslada ugu horraysa waxaa weeye inuu qalbigiisa uu ku gunto nicmadan min allahi inay tahay walaysat min hayr اllah waa kow tan labaad in an yataxaddaa biha daahiran inuu ka sheekeeyo nicmada ilaahay oo carabkiisa uu ku muujiyo tan saddexaadna
in uu meel mariyo oo uu ka dhigo nicmadaas uu ku meel mariyo ama uu mariyo meeshii khaaliqa muncimka ahaa isiiyey uu raalli ka yahay saddexdaa markuu keeno maca taqsiirihi fa huwa shaakir tan lanaga doonayaana waa sidaas nicmo kastoo walaalayaal ilaahay uuna siiyey subxaanahu wa tacaala waa in saddexdaa khasla lanaga helaa awalan qalbigeenna waa inaan ku xusuusannaa oon ku gunadnaa annaha min allah war bani aadamow ilaahay baa ku abuuray awalan maadan jirin inteennaa meesha fadhida iyo inta adduunka joogta mid ilaahay arji u qortay oo yidhi ilaahay adduunkanaan doonayaa ee aan imaadda ma jiro meelahaa sida hadda aad noo sheegtaan inta badan waxaad ku soo wada gasheen wax la yidhaha layn baad xidheen soo ma laynkaasaa maaragtay qaarna waxaa la yidhi ku qarxadaa qaarna u soo baxaa halkana yimaadaa laynkii kuu soo xidhay ee telefoon iyo aad kala soo daashay weligaa iloobi maysido waxaad leedahay hebel miyaan iloobi karaa layn buuba ii soo xidhoo barwaaqadaa iyo jannadaas way soo dhex dhigay soo maha allahu rabbulcaalamiin adoon leen iska soo xidhin telefoonna iska soo hormarin waraaqna soo dirin adduunkan ku keenay jalla jalaaluhuna waad ilowsanta ya ugu mahadnaqi maysid oo laga yaabaa weligaaba adduunkan inaad ka tagto adoon ugu mahadnaqin nicmatuliijaad ilaahay ku keenay jalla jalaaluhu ixsaan iyo tafadul inaad adoon marna ugu mahadnaqin adduunkan inaad ka tagtaa dhici karta marka waa xusuus waa inaad qalbigaaga ku gunadaa annahaa min allah jalla jalaaluhu waxaad cunayso fa minhu waxaad cabbaysa isaga xaggiisay ka yimaadeen dharkaad xidhanayso isaga xaggiisay ka yimaadeen meelahaas aasiya maraan maraynay waxaad arkaysaa marmarka qaarkiis madal basar indhahaagu intay ku dhammaadaan oo wada dhir suuf ah suufka geedka suufka leela waa intay indhahaadu ay ku dhammaadaan wey dharkaad xidhanayso fa min allah waxaan kale oo laga soo saaro oo muntajaadkan batroolka la yidhaha ilaahay baa keenay jalla jalaaluhu subxaanahu wa tacaala marka kulluka nicma min allahi baa tahay markaad daashood doonaysa inaad seexato ilaahay baa ku siiyey subxaana wa tacaala hadduu hurdada kaa tagsiiyo cid kale oo ku siin karto ma jirto abadan dhakhaatiirta haddaad u tagtana way ku sumaynayaanu inay sun ku siiyaanoo kugu seexiyaan mooye hurdo kuma siin karaan waxaasoo nicmooyina ilaahay baana xusuusinayay haddaba walaalayaal baaraka allahu fiikum qofku waa inuunan iloobin oo had iyo goor uu xusuusto nicma allahi jalla jalaaluhu si uu u jeclaado oo ilaahay ugu mahadnaqo